وبالشعر يقولوا بالخير وياروسو بربرقوركو هشيسا بلانتي كدبايسي وبالشعر يقولوا بالخير وياروسو بربرقوركو هشيسا بلانتي كدبايسي ومتانا بوبي وبحوية لبيري جعل ويا بسلادي بيحن دونا عليمو ومتانا بوبي وبحوية لبيري جعل ويا بسلادي بيحن دونا عليمو أساسين كلاقيسا إلهو كبتبادي وبحبار يوصل على هنا كبيرو أساسين كلاقيسا إلهو كبتبادي وبحبار يوصل هذا run ahaantii maanta halkan galabta waxaan iskugu nimaanay xalfadeena sanad guuradeena jacaylka ay ka soo wareegatay muddo 4 sano maanta ay ku beegan tahay run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay waxaana aad ugu sii faraxsanahay maanta adoo sii horfadhiya labadeena wada qoslayna farxad wada qaadanayna ubixiyaan u beernay in aanu ka miro dhalin ayaan maanta u baahanahay waa runta hanadow aad baan u jecelahay aan ugu faraxsanahay agjoogaaga iyo jacaylkeena inay ka soo wareegtay muddo intaa leeg maantana aan dabcan wada qaadanayno waqti aadna iskugu faraxsanahay ma malay kartid muddada intaa leeg aan soo wada soconay iyo waqtigaa sabirkaasi dheer aynu ku jirnay aniga laftarkaygu sidaan u raagsanayay oo maalin uun inaynu nolosheena ka midho dhalino anaad ugu faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay mar kastaba nolosheena inaan mid ahaano waana soo dhaweynaya mar kastaba inaan nolol iyo mustaqbal samaysano okay ma santaasada هذا رنانتي ورنتا أرنتاس إن بدنا ينسوي كل يعني هوي يا أبو مرة بحكي دردنا إن أنا كورسه يقول أنا وكديدي أنت وكديدي رنانتي وحاول شيء إن قبل أنا جعل هاي جعل لو ذا مدة أفر سنة سوي إلا إن جامعة كدمين سويان وشيء وأنا أشجع فرحة دينا وتاهي جعل كينا تاهي نورش دينا تاهي ما أنت حتى وحاول بفدنا إن أبو تاهي جعل كي نورش دي مدة إلا 4 سنين ما ود سوي ما أنت وأنكو فرح سنة هي 4 سنة إني ما أنتكو بيجان تاهي مكان نورش دي يا تاهي هو يا أبنا أرنتا وانكد على بالكورة أرنتا هذا سيكلو تاهي waa mahadsantahay xabiibi aniga markasta laftarkayga waan jeclaa inaan noloshaada noqdo haddii waqtigu xataa ina kala kaxeeyo oo noloshaada waqti xaadirkaasi ku guulaysan waayi lahaa haddaan uridaada kuwa noqon waayo waxaan isku dayi lahaa talabaad inaan noqdo talabaad haddaan noqon waayo waxaan isku dayi lahaa tasaddexaad inaan noqdo tasaddexaad haddaan noqon waayo inaan ta afraad inaan noqdo laakiin waan ku faraxsanahay noloshaada inaad yacni aniga ii hibaysay anigana aan adiga kuu hibeeyey nolosheena waxay noqon doontaa qaale mid hal mida aynu nolosheena dhan wadajir aynu u jiri doono dabcan waqtigana siduu inoo mideeyay waxaan rajaynayaa inaynu sidaas u madaysnaano waxaan aad kaaga mahad celinaya xabiibi sida quruxda badan ee adoo waalidkaa waxba yeelin anigana aanad waxba yeelin nolosheena aad u jeceshay inaan hal mid noqono nolosheenana waxaan noqon doonaa laba awidkood isku tiirsan dabcan waalidkoodna aan kala dhantaalin iyaguna aan isdhantaalin insha Allah waxaan rajaynayaa inaynu aragno midhahaas aynu soo tabcaynay inta badan anfaacigooda inaynu aragno haddii Allah wada la ogolaado aadna waanu jecelahay inaan nolosheena aan dhisano midowno هذا maadaama saas tahay aniga hadda hooyadii aabbo waan u sheegaya waalidiinteeda u sheegaya adigana waa inaad u sheegtaa hooyadii aabbo sida aan kuu soo doonto aan isku nimaano labada reerna isku keenno si isku bartaan labada reerna isku helno
markaa sidaasaan jeclaystay inaad u sheegtid. waad mahadsan tahay Hanad Qaali sida quruxda badan ee aad dabcan nolosheena inaan u dhisno aad igu soo bandhigtay muddo badan waan sugay waan u sameeyay maalintan oo kale inaan aragno si family-gan ay nagula farxaan inaan nolosheena midaynayno maadaama muddo badan dabcan nolosheena soo wadnay sidii aan u dhisan lahayn waan u sheegayaa hooyo iyo aabbo si ay arintaasi dabcan iyaguna ugu diyaar garoobaan waxaan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad igu soo sameysay ee dabcan nolosheena aad u soo waday waxaan aaminsanahay anigu muddadaas 4 sano iyo nolosheeda inta kula qaadan doonaba inaanu jirin qof ka wanaagsan ka dabci fiican haday noqoto dhanka jacaylkana qof noloshiisa inuu qof u hibeeya qof kula dhigmi kara inaanu jirin adduunka waxa qof walba ugu jecel yahay labadiisa dhaayood aniguna waxaan ka jecelahay labadeeda dhaayood aad baad u mahadsantahay xabiibi حياتي هند waxaan kuugu talagalay ubaxan aad ka quruxda badan leh isla markaana dabcan indhaha markay eegaan ama indhaha qofka bilaadanka waxa ku dhacaan oo waxa ugu quruxda badan ee dhaayin ku doogsadaan waxaan kuugu talagalay qaali adiga yacni mideynta nolosheena ubaxaasi aad ka quruxda badan waxa uu dabcan rajo dhig iyo gobol u noqon doona nolosheena mustaqbalka dabcan waxaan rajeynayaa sida ubaxaas u nuurayo inay nolosheena iskugu nuurto cid kasta oo nolosheeda doona aad baa kaaga mahad celinaya qaali waqtiga qaali sida quruxda badan ee igu sameysay ya xabiibi waa maasanta aad baa u maasantahay ubaxa quruxda badan ayaad siisay boqolkiiba ku maasantahay xubbi imkan waa sii soconaynaa ina mari qaali هذا أب معن يورن سمو في عليه سكا يقدم بيسه مرنا وحنا مقلة هذا ولا أب مو يندواد ويمي مركا ما أنت وحنا سريدة قبل هذا مركا ربكوبا أنت عن سلاله لكن هذا نسكون منه بلي ورن هذا ورن أبو أنا كمان أنت دور شريد أب مو يمدي أب أرين بدوني أنا كل شيء arintan doonay inaan ku sheego waxa tahay abooni hada jaamacadda dhameeyay maadaama jaamacadda dhameeyay kullee ina waliba waxay gurigooda u joogtaa ina marka gurigooda laga soo doono ay tagto guriga ay xaq u lahayd waxaan doonayaa abo inaan ku sheego inuu jiro wiil aan doonayo muddo badan aan wada soconay oo yiri waxaan u imanayaa xaafadda waxaan doonayaa abo inaan ku sheego arintaasi wiilkaasina muddo waan isjeclayn waxaan doonayaa aabo inaad si fiican u qaabasho markuu wiilkaasi ku yimaado gabar kasta adduunka waxa uu joogtaa inay mustaqbal yeelato laakiin saabo waxaan ku sheegayaa hodan ahaan inaan yaraantaadii aan ku bixiyay wiilkii in adeerkaaga oo Mareykanka joogay walaalkay iga weyn dhalay ayaa u doonantaa marka arrinkaas la soco jacayl qof aan jeclaan 4 sano ay jeclaan absolutely afkeeda kama socon ma garad aburun hadaan ku sheego annaka qof kale oo shisheeyay inuu ma soo galo ma doonayno adeerkaaga u doonan tahay wana noo soo socda asaga ku guursanaya asaga ayaana mustaqbalkaaga yeelanaysa wax jacayl la yiraahdo aniga waxaas ma aaminsanay abo anaga wiilkaas saxdi baan wada galnay lagamana yaaba xadigan la galay anigu marnaba inaan ka noqdo wiilkayna adeerkaya abo anigu adigan ku qaadi kari waayo maahane wiilkaas marnaba lagama yaabo inaan guursado sababtoo abo qof aanan isku lahayn mid dabeecad iyo mid dhaqan toona oo yaraanteedii isugu kaya dambeysay abo suuragal aniga ila maahan inaan qofkaas la dhaqmi karo anigana abo wiilkaas cidaan ahayn ma doonayo haddii wax kasta la igu akhriyana isaga mooye cid kale ma marayso hodan ma adiga amarkaaga soconaya bas ani amarkayga soconaya aniga waxaan aabahaa hadalkaygaana maqli doontaa qof aan wiilkaas ahayna ma guursanaysid adoo inta leeg baa doonaysa aniga aabaha inaad anta amaraysiiso jacayl iyo wax aan loo joogin ay timaadeen ogtahay inaan dhaqan leyn haddaan Soomaali nahay dhaqankaas oo gabar la bixiyay inaan mar laba laga soo noqonin runtii haddaad doonaysid aniga dadkaas
saa dambana wuu soo socdaa wiil reerkii walaalkay ah ee wixii oo dhan aan ku wada heshiinay inay yimaadaan oo arooskiina aan qabanno ayaad waxaad leeyahay aabbo ceeb igu ahayn inaan maanta ka baxo laba ilmaadeer yaraanta isa siino marka aabbo waad yeelaysaa arrinkaas yeel hanay ceebeenin aabbo haddaad jeceshahay gabadhaydii curaddaa tahay waa markii ugu horraysa ii kaa soo doonto say u noqon kartaa aabbo waxaas haddaad aabbo ay jeceshahay waa inaad hadalladooda aad yeesho waana kuu ducaynayaa mar kastina waa kuu ducayn jiray marka aabbo taladeeda wayaan waa ku baryayaa aabbo arrinkayga aabbo anigu waa go'aan kasta aan kuu sheegay waa sidaan kugu sheegay lagamana yaabo inaan ka laabto taasi waa go'aankayga adi oo kale ah amarkayga aan qaadanayna sida loo abaalmariyo waan aqaanaa aniga aabbo wax kastood igu samayso waan ku jecelahay aabba ani hadday jeceshahay amaradeeda ayaa lahayd maantana waxaad ugu wadaa dhiigkarka inaad igu ritay gabadhayda curaddaa tahay maanta aniga caawasaan gurigan uga tago mar dambena inaad arki doontid meel dambe aad joogtana ma istaagayo intaan ceeboobi lahaa adduunka anoo ka tagaa laii qaatay waana iska tegayaa maca salaama gurigiina waan kaaga tagay maya aabbo aniga wax kastood samaynayso igu tiraahdo yeel waan yeelayaa dee hadday saas tahay aabbo hadalkayga maa yeeshid waan yeelayaa aabbo aabbo haddaa saasi waa kuu ducinayaa wiilkana berriyu noo imaanaya waa soo dhaweynayaa ya aabbo waa inaad yeesha anna waan ku jeclaanayaa ma garatay waana ogtahay dhiigkarkan wuxuu leeyahay inuu khatar u yahay inaa maanta iftikaa tago maa jeceshahay maya aabbo aabbo waa kuu duceeyey khayr allah ku siiya aabbo macaya Haya, waa ku aabbo. duceebo hodan run ahaantii hooyii aabbo sheegay arrintii way iga aqbaleen aad bay ugu farxeen labadayna runtii markaan u sheegana way soo dhaweeyeen si qurux badan wayna ku farxeen bal ka waran adoo dhankaaga faamigii hooyii aabbo ma u sheegtay maxay ku yiraahdeen hanad anigu kulley war farxad le maanta kuma wado arrintiina kuma guulaysan markan aabbo la hadlay sabab maxaad ugu soo guulayso weeday oo dhacay hanad waad ogtahay adigu inaan adiga ku jecelahay oon weliba indhahayga kaa jecelahay waan isku dayay arrintiinan aabbo u sheego laakiin suuragal may noqon sababaha ay suuragal u noqon weyday inaan aabbo ka dhaadhiciyo guurkeenna waxaa ka mid ah aabbahay wixii siiyey anigoo yar wiil in adeerkay oo maraykanka ku maqan waxaana aabbay sheegay in wiilkii soo socdo waad ogtahay dhaqanka soomaalidana inaan marnaba laga boodi karin haddii wiil la siiyo inaan uu aabbuhu iyadoo yar labada qof la isugu ballan qaado marnaba inaan arrintaasi laga bixi karin aabbo wuxuu ii sheegay in wiilkii soo socdo waan u sheegay aabbo arrinteena waan ka dhaadhiciyey laakiin suuragal may noqon aabbo arrintaasi inuu iga aqbalo anigu runtii aabbahay waan jecelahay hanad aabbona anigu waan jecelahay adigana waan ku jecelahay jacaylka aabbiyo jacaylkaagana kulle markaan is agdhigay aabbahay wuxuu leeyahay xataa dhiikar heer wuxuu gaadhay aabbo dhiikarka uu ku kaco anigii aabbo in badan waan isku afcelinay aabbahayna waan ku afceliyey laakiin ugu dambayntii waxaan go'aan ku gaadhay anigoo og inaan ballantii ka baxay anigoo og inaan ahay qof xun inaan aabbahay go'aankiisii aan raaco waan ogahay inaan noqdo qof xun oo ballantii kaga baxay laakiin maaha waxaan ugu talagalay waad og tahay waalidkeenna qof kastaaba wuu jecel yahay inuu adeeco uu noqdo waalid adeec anigana sidaasi ayaan aabbahay ku aqbalay oo arrintaasi aan ku yeelay
laakiin ogow nacayb aan ku nacaba iyo ballanka bax aan ballanta ka baxay inaanan marnaba kaaga tegin waxaad ogaataa xataa haddii aan noqdo wiilkaas ooridiisa inaanad tahay adigu qofkaan jeclahay hodan ma aniga leedahay anigoo ku sugay 4 sanaad leedahay in adeerkay lagu darayaa waxaas wax soconay ma jaceelkeena mee 4 sanaad ku sugay in ka badan jaceelkeena maanta masaasaa leedahay in adeerkay lagu darayaa abahay markii igu lahayn guursaana aan ka diiday jaceelkayga 4 sanaad sugay aan koori ayaa maanta ay leedahay in adeerkay dibadda kiimid ayaan guursanayaa waxaas wax soconay ma hodan arinta ka fiirsan ku leeyahay arin dib loogu noqon karo weeyaan arinta ka fiirsan ku degdegin waayo ana u mudan in jaceelkayga 4 sano aan ku sugay maanta hodan waad ogtahay hadda maanta aan ku waayo nafteeda waxaan ku dhaartay inaan maanta istilayo sababtana waxa uu ahaa adiga inaan istilayo hanaad waxaan kuu sheegayaa inaadan naftaada qaaliga aanad marnaba u goynin jacayl haddii aynu labadeena calaf isku leenahay waxaad ogaataa inaan is heli doono waxaad ogaataa inuu guurku calafka ka wen yahay بلينا هبار الطبق محانا قدن ويدر شي بلي هرددو ويحنتي وخي محيسح شي بلينا هبار الطبق محانا قدن ويدر شي دير السوا كوني مرة عشقي كنايا بدواني كناري سليقي دو مارينايا دير السوا كوني مرة عشقي كنايا بدواني كناري سليقي دو مارينايا وينو إيمان تنتهي هذا Hey abo كالي أبو hey abo adeero واتنا قاعد يسداد هذا أبو هذا وكان ما دويكين أدير كذا ما شاء الله هذا نوي ويناتي iyadoo yar ayaa igu dambeysay مهد هذا وكان مهد إلهي نبض نوكاني وقرت سماعين مهد واتن كبدي ay adeero مرنا وين أدير هذا مرنا وقاعد يسداد نقول ما شاء الله waxaa daraaddeed ayaa dibadda uga timid ballankii yaraantay aniyo walaalkay iga weyn aabbaha markaan isa siinay iskinkii siinay dee maanta idinkoo yar bay ahayd markii hore maanta laakiinse waa weynaadeen maasha allah kowdhe hadda wixii ka dambeeya wixii berri ka dambeeya waxaan u galaynaa hawshiina ma garan hodan aabbo ballan waxaan kaaga qaaday aabbo arooska hargeysa ugu wanaagsan inaan ku dhigo haddii dadka arooska baabuur iyo waxaas lagu wareeyo ani helicopter aan ku keenaa magaalada hargeysa lagu wareegayo waa garad soomaan soo dhaweynin martina mati waa guriga yaraantaadii aad ku ciyaari jirtay waa kaas midda kale tan aaban waa la hadlay Mareykanka maanta kala hadlay iyo hooyo dhamaantood waxay yiraahdeen arooska waa ka soo qaybeyna afwa ku sheegeen Soomaaliya saddex isha dabadeedna way noo imaanayaan hawshiinaan kalena waa kaas abo soo dhaweyn lahayd aad ma santaada يا هذا معنا مركب السيشة كاستو إن شاء الله نيجي ندي أصحابي أنت جاي كودي أنا سيشة جاي قبل قبضية رواية كاسية أي هذا شكرا أي هذه أنا محل هذا hey abo هذا فرحة تاعي
in layka siiyey isla markaana aynu noqon doono laba nolosha ku faraxsan oo weliba ay kasii wanaagsan tahay inagoo ilmaadeer ah. aad baan kusoo dhaweynayaa. waa runtaada mahad aad baad u mahadsan tahay waa la mahadi wax ka fiican ma jirto laba inaadeer oo damcan noloshana wadaagaya anoo kugu soo dhaweynaya gacmo furan. waxaan doonayaa inaan hal mid ku weydiiyo waxaan doonayaa inaad ii sheegtid inaad wax ka og tahay amaba inaad wax ka akhrisatay taariikhda amaba qisadii Hodan iyo Cilmi Boodhari. waan aqaanaa waxay ahaayeen laba qof oo isjeclaaday isla markaana iscalfan waayay. mahad ma ii sheegi kartaa sababta ay isku calfan waayeen Hodan iyo Cilmi Boodhari? haa walaal, Hodan ayaan laba qof oo aad isku jecel, Hodan iyo Cilmi Boodhari. Hodan dhankeeda ayaa waxaa ka soo baxay in faamiligeeda hooyadeed iyo aabaheed ay siiyaan inaan wiil inaadeerkeed ah isla markaana uu Cilmi Boodhari uu ku waayay Hodan isagoo jecel. mahad matalan oo kale ma la jeclaan lahayd adiga haddii booska lagu odhan lahaa Cilmi inuu guursado Hodan waan jeclaan lahaa inay isguursadaan Hodan iyo Cilmi Boodhari, laakiin waxa sabab noqotay waalidkii oo dhinac ka noqday Hodan iyo Cilmi Boodhari si ay isku heli waayaan iyagu. aniguba aad waan u jeclaan lahaa inuu calfado Cilmi Boodhari Hodan. Hodan aniga waxaan jeclaan lahaa imika, waayo muddo badan ayaa igu dambeysay anoo yar ayaan Hargeysa ka tegay, waayo waa dalkayga hooyo, aad baan ugu xiisay. waxaan doonayaa inaa isoo tustid magaalooyinka si aan usoo samaysano shopping. hadda waxaa magaalada aan doonaya caawa inaan wada tagno aniga marka timid la sheegay qorshe ku jirta inaan tiyaatarka isku raacno. hadda waxaan tagi doonaa tiyaatarka. fiicanahay walaalhan adigu seetahay alxamdulillah wanaagsan waa fiicanahay aniguna hanad wiilkan aan ku baro waa in adeerkay wuxuu ka yimid Mareykanka mahad adigna sidoo kale inaan wax ka mid yahay inamada xaafada okay barasho wanaagsan barasho la mid ah saaxiib aniga hanad baaliya barasho wanaagsan ay hanad anna wax la yiraahdo mahad baleeda barasho baro oo gacalsayda Hodan iyada darteed ayaan ugu yimid Mareykanka waxaan doonay wiigana sarasno mar hadda tahay asxaabtii xaafada aad baan u jecelnahay inaad ka qayb qaadatid arooskayga iyo xafladeeda way arag bad ku tahay mar hadda dhalinyarada xaafad tahay aad baan kaga mahadcelinayaa oo mahadsan saaxiib hambaliyo arooskiina waan imanayaa gacan libaxna ka qaadanaya waayo maadaama aan ahay inamada xaafadii waan imanayaa arooskiina qasab waajibna ugu tahay insha Allah aad baad u mahadsantahay hanad oo sida noogu hambaliyay ilaahay na aqbalo ducadaada aad baad u mahadsantahay okay
ma ii jaaxayshahay hodan xabiibi ilaa hadda ilaa ayaantan imid wejigaaga wax farxada kama hayo sababtana ma garanayo aadi faraxsanaa weydi taada mahad oo intii aad joogtay wax farxada igama arkin sababa ayaa jira laakiin waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo 3 su'aalo haddii aad iga jawaabto waxaad ogaan doontaa sababta aanan u faraxsanayn xabiibi diyaaraan u ahay inaan kaaga jawaabo 3 su'aalood maxay yihiin 3 su'aalood 3 su'aalood aan doonaya inaan ku weydiiyo waxay yihiin inta ugu horeysa haddaan kaaga bilaabo waa maxay jacaylku xabiibi waa farxad taada mahad jacaylku waa farxad waxaa jirta sababtan u farxi lahay inay tahay inaan wiil anugu jecelahay wiilkaasi waad hor fadhida adigu mooyaane qalbigayga isaga mar had iyo jeer kusoo labalaabanaya amaba aan jecelahay indhahaygana waan ka jecelahay wiilkaasi laakiin adigu waad hor fadhida wiilkaasi sawirkiisina waa kan hambaliyo arooskiina waan imanayaa gacan libaxna ka qaadanayaa waan gartay su'aasha labaadna sheeg su'aasha labaadaan ku weydiinaya waxay tahay waa maxay ballantu waa ammaano waa qof aad axdi wada gasheen haddaba aniga iyo wiilkan hanad waxaan wada galnay axdigaasi waan isku aaminay laakiin aniga ayaa ka baxay axdiga sababo duruufood awgeed ayaan uga baxay axdigaasi su'aasha saddexaad ayaan kaa sugayaa su'aasha saddexaad wax weeyaan waa maxay guurku waa calaf waa si fiican mahad maadaama guurku calaf yahay aniga iyo jacaylkayga hanad waxaana kala kaxeeyey calafkana kala kaxeeyey gacantaada ayuu ku jiraa inaad labadeeda jacaylkayga aad badbaadisid in uun haddaad jacaylka wax ka taqaano waxaan kaa codsan lahaa inaad noo badbaadiso jacaylkayga anagu muddo badan ayaan wada soconay waxa uu sugayay waqti dheer si kasta oo laysku dayo in labadeeda lanoo kala kaxeeyana may suuragal may noqon inaan kala tagno laakiin sababtaada ayaana u noqonin mid aan ku kala tagno waan ogahay inaad meel fog ka timi waan ogahay inaan nahay dad faamili ah laakiin waxaan kaa codsan lahaa si naxariis leh oo galgacal ku dheehan yahay walaaltinimo inaad iigu badbaadiso jacaylkayga anigu waan jecelahay isaguna wuu jecel yahay laakiin waxaan doonayaa inaad ii badbaadiso jacaylkayga aad baan kaaga codsan lahaa taasi haddaad inuu jacaylka wax ka taqaano 3 su'aalood ayaa weydiisay anna hadda waxaan rabaa inaan hal su'aal ku weydiiyo waad weydiin kartaa mahad maxay isku calfan weydeen wiilka mahad sababtaadii weydiisay aan wiilkaasi isku calfan weynay ayaa waxay tahay aabba wuxuu sheegay aniga markii aan yaryarayn in adiga laykaa siiyo dhaqankeena marka la eegayo ee laba yaraantii la isku siiyo wiil iyo gabadh weliba faamili ah amaba si kastaba ha noqotee dhaqankeena inaanay dhici karin marnaba ina gabadhaasi qof kale lagu daro sababtaasi ayay diiday inaan wiilkaasi aan calaf isku yeelano aabbo waan isku dayay in badan inaan ka dhaadhiciyo inaan aniga wiilkaasi isjecelnahay laakiin aabbo waxaan gaadhnay heer aan iska hornimaadno anigana aabbahay waan jecelahay mana doonaya inaan noqdo qof waalidkii ku afceliya amaba wuxuu aabbahe doonayo inan diida inaan noqdo sababtuna ay tahay inan kastaaba wuxuu waalidkee doonayo ugu yeeshaa anna sababtaasi ayaan u yeelaya aabbahay qof aanan jeclayn inaan nolosha ula wadaago aabbo waxaan go-aan ku gaadhay markii dambe inaan yeelo sababtaasi ayay igu kaliftay inaan noqdo qof waale adeeca jacaylkeedina ku weyday aabbaheed sidii ay u raaligelin lahayd laakiin wax kastaaba adiga ay maanta kugu xidhan yihiin aad ayaan uga xumahay hodan arrinkaasi dhacay waa arrin foolxum balse dadkeenii hore waa run waa saa sheegtay waxay yaqaanaan dhaqan in laba qof oo yaraan ah ay isisiiyaan isla markaana ay isla sugaan inta ay taasi waan ogahay laakiin waxaan kuu sheegayaa in ay dembi tahay in laba qof oo isjecel ama isdoortay oo dooqoodu isi siiyey in la kala qaado ballan waxaan idinka qaadayaa inaan jacaylkiina aan ka dhigo mid guulaysta isla markaana hadafka aad doonaysid aad ku gaadhaan mahad waxa kale aan kuu sheegayaa wiilkaasi hanad waxa uu horey igu sheegay aniga haddii aan isweyno amaba aan iscalfan weyno inuu istiilayo anigana ma doonayo jacaylkayga inaan waayo
waxaan kaa codsanaa inaad jacaylkayga ii badbaadiso ilka aad ii sheegtayna waxaan ballanid ka qaadayaa inaan dib u soo nooleysiiyo maanta laga bilaabana waxaad noqon doontaa walaashayda adduunka ugu qaalisan hanad waxaad igu timaadeen in mar labaad nii hambaleeyay kuguma aanaan iman inaa annaga noo hambaliyaysid balse waxaan kugu nimi inaan adiga ku hambaliyano waad og tahay inaan ku jeclaa haddana aan ku jecelahay weligay inta cimrigayga ka dhimana aan ku jeclaan doono hanad waxaan doonayaa in adig iyo hodan aan jacaylkiinnii dib u soo nooleeyo ballantii kaagamay bixin balse waxaa caqabad ku noqotay waalidkeedii bahed sidee loogu dhaadhicinayaa mahad iyo hanad ina mariya hadda aabba u tagnabee adeer aabbo farxad weyn bay ii tahay inaad guriga nabad ku soo noqotay ilaahayaana mahadleh laakiinse wiilkan weli maan arag uu idinla socdaa ma asxaabtii maraykankaas la joogtay aan u malaynayaa bal barra horta adeero wiilkan waxaa la yidhaa hanad labadan qof waa laba qof oo lamaano ah oo isjecel jacaylkoodii waxaad ka gashay godob waxaan doonayaa jacaylkooda inaan dib u soo nooleeyo adeero jacaylka iyo lamaanaha sheegaysid waxaan hubaa inay gabadhan ee waxaas kaa dhaadhacsiisay balse waxaan kuu sheegayaa wax jacayl la yidhaahda agtayda inuusan ka soconaynin anigu waan ku jecelahay adiguna waa inaad aabbay jeclaato wiilkan hanad aabbo waa wiilkaan noloshayda ku aaminay isagaana ayaa dhaqi kara waxaanan doonayaa aabbo inaan nolosha isaga la midoobo aabbo markastana ducadaada kama maarmo waxaanan doonayaa sidaan jecelahay inaad ii yeesho aabbo ducadana aad igu raaciso adeer run ahaantii hodan waan jecelahay iyada kama maarmo maadaama gabadhaada aan jecelahay jacaylkeeni noo badbaaday adeer iyada kama maarmo waayo waa nolosheeda adeer nolosheeda dhan baa ku tirsan adeer jacaylkana lagama maarmo adeer runtii hodan kama maarmo waayo waa jacaylkaygii kamana maarmo oo aad baan u jecelahay waayo dhaawac baa hore iga soo gaaray kaba soo qaad anoo wiilkaaga waayo anigoo wiilkaaga ayaa maanta ku hortaagan gabadhaadana jecel
hodan aabbo waa runtaa godobaan kaa galay sababtan godob kaa galay anoo da'dan ah ayaan jacayl aqoonay ani hooyadaa markaan isguursanaynay waan doontay laakiin wax jacayla ma aanu dhisin mana aanu soo marin laakiinse aabbo siduu in adeerkaa gashay godob ayaan kaa galay jacaylkana godob baan ka galay bini'aadanimadiina godob baan ka leehay wiilkan aad jecleedna godob baan ka galay laakiinse maanta waxaan ogaaday jacaylka wuxuu yahay jacaylku waa in qadarin leeyahay horaa loo yidhi aqoon darro waa u nacab jacayl marka aabbo waxaan jeclaystay meeshii farxaddaada niyaddaada ay jeceshahay anna ayaan kugula jeclaanayaa jacaylkana ma aaminsaneen laakiin waxaan ogaaday inuu jiro maanta aabbo raalligelin ayaan ka bixinayaa qalbigii aan kaa dhaawacay adigana runtii hanad waa u qalanta hanadna wuu ku qalmaa marka inaad isaamaxdiin ayaan jeclaan lahaa hanad runtii adigana dhaawacii gabadheeda ay kuu garaysay sababta ayada may lahayn balse anaa sabab u ah laakiinse waxaad tahay wiilka keliya ee gabadheeda u qalma ballanna waxaan kaa qaaday inaan hawshiina saan u geli doono arooskeyga maantana waxaan leeyahay jacaylku ha noolaado waxaana jeclaanahay in berri aabbaha iyo waalidkiiga aadi bartid si adiga gabadhayda hodan hawshiinna aan u galno raallina waxaan ka bixinayaa maskaxdii iyo dhibaatadii ku soo gaartay raalligelinaan ka bixinaya adeer runtii waxaad tahay qof bini'aadanimada wax ka yaqaana jacaylkana qadariya wanaaggaagana qadariya saad iigu sheegto ani haddaan garan waayo laakiin qadarintii jacaylka adiga ayaa gartay waxaana ku aqaanaa geesigii jacaylka waxaana ku aqaanaa aabbihii jacaylka waxaana ku aqaanaa father of the lord waayo gobonnimo ayaa samaysay oo ani aan garan waayo laakiinse maanta waxay ka dambaysan hodanna waa walaashaada saddexdiina waxaa idin leenahay inaad isaamaxdiin ii dulqaata wixii maanta ka dambeeyana jacaylka qadarin fiican ayaan siinayaa ku sheegay arrinku waa saas iminkana waan sii baxayaa saasuu la socda ilaahay aduu ku barakeeyo jacaylkayna hanad iyo hodan waad aragtaan farxaddii sidoo adeerkeen inooga aqbalay isla markaana uu ku hirgalay jacaylkiinnii aad inta badan u soo samriseen waxaan ballanid ka qaaday asaan idii sheegayba inaa idinkuna dhinkiina aad ka soo bixi doontaan uu noqon doono jacayl iyo midhodhal wanaagsan insha allah tahay mahad waxaan ilaahay kaaga baryayaa runtii inaad hesho mid niyadaada qancisa wanaagaaga ka talisa farxadaada ka talisa oo noloshaada oo dhan qurxisa insha Allah waxaan ku rajaynayaa nolol waarta sida anaga nolosheeda uga talisay inaad nolol fiican aad u hesho aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaan ku aqaanaa runtii geesiga jacaylka inaad tahay waan ku rajaynayaa nolol farxad leh insha Allah jacaylkeeduna inuu waara intaay ka badan anaguna waan rajaynaynaa aad baad u mahadsantahay mahad aad ayaa u mahadsantahay maadaama jacaylkeyga ii badbaadisay waana ku mahadsantahay guurkeenna haryasamo ku waarikeenna sidii hawayo aadan rabbiba isu keen xulay guurkeenna haryasamo ku waarikeenna rabbiba isu keen xulay guurkeenna
Hawaii,